بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام waxaynu sii wadi doonaa insha allahu tacaala darsigeeni ku saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka waxaynu caawa qaadan doonaa walaalayaal suuradda magaceedu tahay suuratul infitaar oo ka kooban 19 aayadood suuraddan waxay ka mid tahay suuradihii uu rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam shayabatnii huudun wa akhawaatuha suuratu huud iyo walaalaheed ayaa ciro iga soo saaray waxaanay ka hadlaan suuradahani qiyaamaha iyo siday u ahwaal badan tahay ee u xaalada adag tahay suuraddan infitaar waxay ka hadli doontaa qiyaamaha iyo calaamadaha lagu garanayo ashraadu saaca alkubra ashraada saacadda qiyaamaha calaamadaha waaweyn ee dhici doona intaan suurta la afuufin ka hor waxay kale ka hadli doontaa suuraddani labada malag ee garbaha inaga taagan qoraya acmaashayna iyo in dadka hadhow la xisaabin doono oo ilaahay la hor istaajin doono kabacdi marka la xisaabiyana in laba kooxood loo kala bixi doono fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir koox jannada ku aroorta iyo koox naarta ku aroorta walciyaadu billah markaa suuraddu intaasay ka hadlaysaa ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala bismi illaahi araxmaan raxiim ida samaau infatarat markay samadu dildilaacdo yacni waa marka uu qiyaamuhu dhacday adduunku waa dhammaaday markaas intaha alcaalam caalamka waa gabogabooba markaa aragto samadii oo dildilaacday oo soo daadanaysa waa suurtiina la afuufay markaa waa suurta yacni labaad ee samada ay ku dildilaacayso iyo dhulka iyo waxwalba waida alkawaakib ilaah wuxu uhi waa marka xidigo qiyaamuhu markuu dhacayo waxaad arki doontaa waida alkawaakibu xidigihii intatharat oo soo burburay intay burbureen ee dildilaaceen oo iftiinkii ka tegay soo daadanaya ilaah wuxu uhi subxaana wa tacaala waida albixaaru badihii ay biyuhu fadhiyeen fujirat way isku furmi doonaan hal bad bay noqon doonaan dhulkii u dhexeeyay meesha uu ka bixi doonaa sababtan waxa weye dhulku wuu dildilaacaya de idaa zulzilat ilardu zilsaalaha dhulkuu gariiraya markaa dhulkuu burburaya markaa wixii kala haya biyaha dhulkii kala haya teedkiibaa meesha ka baxaya hal bad bay isku noqonayaan fujirat baxran waaxidan bad kaliya noqonayaan oo weliba ololaysa biyuhuna ololayaan ilaah wuxu uhi subxaana wa tacaala waida alqubuuru bucthirat waa marka xabaalihiina laga soo baxo laga soo boodo oo dadka ka soo baxaan xabaalihi oo ilaahay subxaana wa tacaala idaa zulzilat ilardu zilsaalaha waa kii ku sheegay marka dadku way soo baxayaan xabaalahay kasoo baxayaan kasoo ifbaxayaan waayo dhulkii baa dildilaacaya marka dadkii ku jirayna way soo baxayaan ilaahay dib uu soo nooleynaya ruuxdii iyo jidhkii way isdoonanayaan ilaahay baa isku raadinaya qof kasta wuu soo noolaanaya iyagoo kooxa kooxa ah ayay soo baxayaan marka ilaah wuxu uhi subxaana wa tacaala calimat waxay ogaanaysaa nafsu naf kastaaba maa qadamat camal intii ay soo qabsatay wama akharat iyo intii aanay qabsanay macnaha ay gabtay
intii aanu qofku qaban camalkii aanu qaban uu ka dhintay uu gabay intaba uu arki doono wixii uu ka gaabiyey ee uu ku gaboodfalay ee ilaahay subxaana watacaala waajibkiisa aanu kasoo bixin oo u qoran iyo intii uu sameeyey labadaba way ogaan doontaa buu ilaahay leeyahy subxaana watacaala naf kasta ruux kasta wuu ogaan doona indhihiisaanu ka qaadi doono marka de waa la horkeenaya calimat nafsu maa qadamat wa akharat naf kasta way ogaanaysa wixii aad soo shaqaysatay intii aad kasoo baxday waajibaadka ilaahay iyo intii aad gabtay labadaba waad ogaanaysa yaa ayuha alinsaanu ilaah wuxuu ihi insaankow marka insaanku wuxuu noqon karaa ka kaafirkee diidan isla soo saaritaanka iyo bacska iyo xisaabta wuxuu kala noqon karaa insaanka oo dhan kaafiran wa mu'minan ilaah wuxuu leeyahy insaanu maa garaka maxaa ku dagay birabbika alkariim rabbigaaga karaamada badan maxaa kaa dagay buu ilahay leeyahy subxaana watacaala maxaa gadoolfalka u sameynaysa waajibaadku ilaahay ku saaray maxaad ugu gadoolfashay ood uga gaabisay oo ku dagay oo ku khiyaameeyey maa garaka maxaa ku khiyaameeyey birabbika alkariim rabbigaaga karaamada badan yaa kaa khiyaameeyey buu ilaahay leeyahy subxaana watacaala oo maskaxda kaa xaday cidda maskaxda kaa xaday ee ku khaladay waayo si aad ilaahay subxaana watacaala amarkiisa u khilaafto ilaahay miyaanu ahayn subxaana watacaala aladii khalaqaka ilaaha ku abuuray adigoon jirin fasawaaka ku simay xubnahaagii simay oo qorxiyey facadalaka oo aan yacni joog kuu sameeyey oo ku taagay oo aan kaa dhigin wax foorara sida xayawaanka oo kale bani aadamku laba lugood bay ku socdaan way quman yihiin joog iyo qumanaan bay leeyihiin iyo taagni qurux badan oo xayawaanka o dhan bay ka duwayin facadalak ilaahay wuu ku qurxiyey subxaana watacaala wuu ku simay wuu ku toosiyey ma kala dheerdheerid ma kala dhantaalinid buu ilaahay leeyahy subxaana watacaala waa dhammaystirantaa ilahay baa ku dhammaystiran ilahay wuxuu ihi fii ayi suuratin suuradtii ugu ficneed ayaa ilaahay subxaana watacaala oo ilaahay suuraddu doonay ayuu maa shaa-a oo ilaahay doonay buu rakabaka kaa abuuray kugu rakibay suuraddu ilaahay doonay ee ugu quruxda badneed ayuu ilaahay kugu rakibay fii axsani taqwiim laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ayay la macnata aayadan laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim suuraddii ugu wanaagsaneed ee ugu qumaneed ayuu ilaahay nagu rakibay subxaana watacaala iyo qaabkii iyo shakligii ugu ficnaa oo xayawaanka o dhan insaanku uu ka duwan yahay macal jinka insaanka bani aadamku uu ka qurux baday ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi ilaaha sidaa kuu abuuray ee xubnahaaga toosiyey xubnaha bani aadamku ka samaysay jirkan bani aadamku wa fii anfusikum afalaa tubsiruun haddii bani aadamku dib u raacraaco dib u fiiriyo wuu tacajubayaa sida ilaahay u sameeyey xubnaha xididada muruqyada lafaha maskaxda siday u samaysantahay wadnaha dhegaha indhaha sida waxaasoo dhamman u samaysan yihiin iyo sida u shaqaynayaan haddii qofku fiiriyo oo uu barto oo isku taxallujiyo wuu tacajubaya aada buu la yaabayaa sida ilaahay subxaana watacaala u abuuray waanaad aragteen oo dee dadka dhakhaatiirta markay soo bandhigayaan iyo dadka ku takhasusay caafimaadka iyo jirka bani aadamka aada bay u yaabaan siday u shaqaynayo mishiinka ilaahay nagu rakibay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi allaha sidaa idii qorxiyey idiin abuuray wuxuu mudan yahay inaad qaadataan amarkiisa maanta yowmal qiyaamahana aada rumaysaan kallaa ilaah wuxuu ihi iska daaya insaanku inuu ilaahay u mahadnaqee bal tukadibuuna waxaad beeninaysaan bidiin maanta yowmal qiyaamaha wa ina calaykum korkiinana waxaad saaran buu ilahay yihi laxaafidiin malaa-igida ilaalinaysa waxaad ku hadlaysaan qoolkiin iyo ficilkiinaba qoraya ayaa garabbaha idinka saaran kiraaman waa malaa'ig karaamo badan oo wanaagsan buu ilahay leeyahy subxaana watacaala oo akhlaaqi iyo asluub badan kaatibin waanay qorayaan wax kastood ku hadashaan iyo wax kastoo samaysaan way qorayaan ilaahay baa u dirtay maxay ku qorayaan ma qalin iyo boog ma combyutar iyo wax kale ku qorayaan allahu aclam ilaahay baa waa cilmu lgeyb inaga maqan laakiin in ilaahay subxaana watacaala waxba aanay ka lumeyn oo wax walba ilaahay u xil saartay malaa'igta isaguna ilaahay uu ogyahy oo wax walba uu ogyay ayuunbaa meesha muhiimaddu waa taa inaynu rumayno yaclamuuna malaa'igtaas waxay ogyihiin maa tafcaluun waxaad samaynaysaan way ka warhayaan ilaahay baa u xil saartay
way qorayaan. marka maalinta yawm alqiyaama qof kaste dee wixii malaa'igtu ka qortay baa lagu xisaabinaya oo ilaahay u xisaaray oo ah malaa'ig uu ilaahay ku aaminay. marka la xisaabiyo dadka labadan baa loo kala baxaya kooxo. ina alabraara kuwa baariinta ee ilaahay subxaana watacaala rumeeyey ee amarkiisa kasoo baxay lafii naciim nimcay dhex gelayaan buu ilahay yihi subxana watacaala. waa jannada lafii naciim, nimco iyo barwaaqo ayay ku baashaalayaan, way dhex gelayaan. wa ina alfujaara dembiilayaashii iyo gaaladiina kuwa ilaahay amarkiisa ka santaagay lafii jaxiim, jaxiimo iyaguna geli doonaan, halkaasay ku hoogi doonaan. yaslownahaa jaxiimo way gelayaan buu ilahay yihi subxaana watacaala yowma addiin, yowma alxisaabi waljazaa, yowma alqiyaama, maalinta qiyaamuhu dhace laysa xisaabiyo jaxiimay geli doonaan. waa lama huraan buu ilahay yihi subxaana watacaala, waa waajib, ilaahay baa xukmay. wamaa hum canhaa jaxiima biqaa'ibiin buu ilahay yihi, kama habsaami doonaan, kama raagi doonaan, xiligu ilaahay ugu talagalay way geli doonaan. yaslownahaa yowma addiin wamaa hum canhaa biqaa'ibiin, jaxiimo kama habsaamayaan buu ilahay yihi subxaana watacaala. mar haddii ilaahay xukumo yadkhuluunaha. wamaa adraaka maa yowm addiin, maalinta yowm alqiyaamaha maxaad ka ogtay buu ilahay yihi subxaana watacaala. maxaad ka haysaa sawir nooceeya baad ka aaminsan tahay? ilahay wuxuu leeyahy sidaad moodaysaan ma aha maalinta yowm alqiyaama, sidaad moodaysaan inay u fududahay uma fududa. uma maa adraaka maxaad ka ogtahiin maa yowm addiin, maalinta yowm alqiyaamuhu waxay tahay, maalinta xisaabtu waxay tahay, maalinta laysa soo saaraya waxay tahay, maalinta suurta la afuufaya waxay tahay, iyo siday u xoog badan tahay. ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahy maxaad ka ogtay? haddaan idiin sheega buu ilaahay leeyahy, ama nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahy anagunbaa kaaga warrami karna maalinta yowm alxisaabta, maalinta yowm alqiyaama. adigu ma ogid, waa wax maqan oo geyba, mana ka sheekeyn kartid ilaa aan anigu kaaga warramo. haddii ilaahay wuxuu leeyahy subxana watacaala aanu kaaga warrano nebi maxamed maalinta yowm alqiyaama, yowma laa tamliku, waa maalinta aanay u tari doonin nafsu nafna linafsin naf kale uma tari doonto shay-an waxba. waxay u tari kartaa ma jirto, waxba kuguma soo biirinayso. kullu nafsin bimaa kasabat rahiina, naf kastaa wixii ay soo shaqaysatay bay ku rahanan tahay. naf kastaana waxay ku mashquulsan tahay nafteeda ku mashquulsan tahay, nafsi. marka ilahi wuxuu leeyahy yowma laa tamliku nafsu linafsin shay-a, nafna naf kale waxba uma qaban karto maalintaas. awood ay wax ugu qabato ama cadaab kaga badbaadiso ama xisaab ugu fududayso ma laha. walamru amarkana waxa iskale yowma idin maalinta yowma alqiyaamaha lilah waxda, keligii baa la ilahay subxana watacala. ilaahunbaa wax amri kara maalintaas. ilaahay subxaana watacaala amarkiisa iyo xukumkiisa iyo qadaagiisa iyo garsoorkiisa ayuunbaa shaqeynaya. qofku ilaahay amro uu ogolaaday inuu shafaaco qaado, uu ergey noqdo, qofkaasumaa shafaaco qaaday. qofku ilaahay u ogolaaday in loo shafaaco qaado ayuunbaa loo shafaaco qaaday. marka amarka ilaahay unbaa le subxaana watacaala. wallahu subxaanahu watacaala